يو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعيق وعباس جنرك عباس يبا صاحبي الأمانتي وأنا السلام سنة كدب ساود أوبتنا حلقة إن حلقتنا نقبل تدريبات أجرت أو سياس دلادي داو ديار تاسنا ونيري على قلنا هذا حلقتنا ما الديار ووريبا حلقتنا حلقة حماسة إيوا حلقة ما توريبا كونفيوز إنها قاد لقيا صاحبي استياري ما تحب إنه ديار كوي هاي اسكو دياري سيدو كل waxaan ka rabaa xalqada in maskaxdaada sayso si boonti walba ula socoto okay hadana tiktok iyo socon oo youtube kali iyo socdo daawaday taas taageernimadaada aad u liidataa oo aad igna taageerisay cadeynaysa okay tiktok iyo youtube isku xiriin ha kala qaadin wuxuu ka caawinaa in xagga xalqooyinka soo dhigo xalqooyinka xagga ka degsan karto xalqo walba xagga soo dhiga oo nadiif ah hada youtube ka degsooyisa ku digi way xagga ka degsanaysa si fudud aan is dhiibeen marka dhibka jirxeeta ninkii tiktok inta soo ma dhigi karo ijraanka gurooda ku socdo inta guroodka ka dhamaanay marka sabab linki to soo dhiga oo mar walba waxa way description kan soo dhiga insha Allah marka tiktok iyo soo youtube kan waa sidoo kale si حلقة أبلغنا نوصل حبيب كان محمد صلى الله عليه وسلم حلقة النوبلارة ذهب وعدك صار وصال نعطي صبر kadib markay noo dhamaatay qisadii aad u murug badneyd Captain Levi waxa soo arkaynaa qisadiina ahdaastii hore aan soo arkaynay oo seasonka 1 ka ahaa in aan soo aragna aan in dhalo ay ku jirto oo dhalaas dhulka hoostiisa la geliyay oo ay hadda ku sugan tahay magaalo kamida magaalada Derbiya Siina ee Derbiya saddexaad iyo Eren oo dagaalkii aad u adkaayo aan la qaato oo ka soo kasbanayo aanina markaas waxa lagu dhaafay dhaladii ay ku jirtay sababta keentay ay tahay in dhaladaas la jibi waayay sidaas daraadeed waxa la wareejiyay Derbiya saddexaad ee Siina iyo dhulka hoostiisa Erwin madaxa maaha ku sugan iyo baadiriinta derbiga xukumayo wuxuu ku leeyahay anigu ma ogin weligeena in taytaniska bini'aadanka isku bedeli karaan sidaas ay taana 100 sano sirtan weligeena mana arkin laakiin waxaana uu waxay isku furaysaa maalintu Eren uu soo biiray waxaana waxay la tahay aadana furiisna inuu yahay Eren ay tahay sidaas daraadeed Eren xageenu jira cid soo iwaa kartana ma jirto waxaana dhan madaxda amarka ay bixinayaan dhamaantood waxay ka imaanaysaa boqorkaana soo amro laakiin boqorka meel uu kuma qiyaam garanayo laakiin soo xarijeeyna soo socdina arkeen boqorkaas Erwin hadalkooda ma dhageysanayo waana ku soo tagaa sidoo kale waxaa jira kuwa la baadiriinta derbi ilaaliya shaqadoodu waxa waa derbiyaas inay ilaaliyaan sidoo kale weena caabudaan saddex derbi oo kala yaqaan Maria Rose iyo Siina baadiriinta derbida saddexda derbi sir wal badan ay ka haayaan oo aadana intuu 100 sano ku jir derbiyaas oo yaqaanaan wax walba xog walba wayna haayaan laakiin shay kaliya aan fahmi laana maxaa ka faa'iideena saddexdan derbi oo aadana difaacistiis in la qariyo baadiriintan waa sidaas oo kale wax badan ay ka haayaan derbiyaashan saddexda derbi sidoo kale waxa ku amar waxay tahay boqorka inay xafidaan inay ilaaliyaan sirtaas laakiin waxa la yaab ee tahay derbiga geeskiisa waxa laga arkaa teetka weyn oo gudaha ku jiro yaa acuudkiyo ma waxaas maruna ma teetka weynka ma derbiga ku dhex jiro leh maya ma ahan waa meeshii aan markii baxsanaysa gacanteeda ku jibisay derbiga qayb kamida taasoo noo cadeynaysa in teetka weynka uu ahayn teetan kale gudaha ku jiraba baadirigan wuxuu leeyahay inta teetankaas qoraxda ku dhicin meesha daboola ee ku xira anjin wuxuu leeyahay siisaas ku dhigi kartaa waxa waa ka ogtaa waxaan markaasna ayaga waxay go'aansanayaan meesha inay daboolaan inay xiraan laakiinse waxaa dhacay wax la yaab ah in la soo wargeliyay teetans lagu dhex arkay derbiga labaad ee Rose sidee ku dhacdane waxaas macquul maba ahabe derbiga labaad maal burburiin masab dhulka ka soo baxeen adib ugu laabana 12 saacadood waxaana dhan intee dhicin ka hor saasha oo ku sugan derbiga Rose waxay maqlay cod oo gariir ah waxay leedahay socodka teetanska oo kala maqlooyaan raayna wuxuu leeyahay maxaa waay saasha meesha teetans ku joogo waxa ku sugan derbiga Rose wana aamin ayeen waxay leedahay wallahi coda maqlooya socodku waa sida teetanska oo kala maqli jiray markaas gabar koox saamid ka tirsan waxay leedahay waana la soo galay teetans oo meel ka imaadeen la gari karin ah waxaan lagu sugan yihiin derbiga labaad ee Rose dhamaantood wayaabeen waxay leeyihiin inta ka imaadeen derbiga labaad ee Rose meel burburiyay masab dhulka ka soo baxeen wallahi waa wax yaab ah dhamaantood way baxayaan wana kala qaybsamayaan si ay soo wargeliyaan dadka maaha ku sugan oo dhan iyo kooxda sahaaminta Miguel oo tiimkan hogaaminaya wuxuu leeyahay waa inaa kala qaybsantiin si ay soo ogeysiin dadka maaha ku sugan iyo dadka banaanka ka jira sida kooxda sahaaminta iyo dadka kale markaas teetans meel ku sugan mar intay arkaan wuxuu soo ordaa si waali ah ma si normal hatta uma soo ordooyin teetanska si shakal kale nooc kale soo ordooyin Miguel wuxuu leeyahay waa inaa kala qaybsantiin qof walba karaankeeda intay tahay dadka soo ogeysiiso asigana intuu awoodo dila laakiin faraskiisa ka fogaaday asigana teetans fara badan ku hareersan markaasna wuxuu arkaa teetan shirkiisna khariib ah gacmo dheer leh shirkiisna sida teetan waxshi ah u eg dhirirkiisna wuxuu dhow yahay sida teetanka weynka oo kale markaasna wuxuu arkaa faraskiisa jihadiisa soo socday isla markaas farasku ka qabanaa Miguel wuu argagaxay intee ku arkana teetan xayawaanada ugaarsanaya teetanska xayawaanada ugaarsanaya ibn aadamka ugaarsadaan markaasna hal mar faraskiisa uu soo tuura si oog ah Miguel hamar meesha ka dhacay isla markaas meesha uu ku sii dhacay Miguel hamar teetan ku dhigay aad uu qaniina markaas daawada teetanka waxshigiisa soo fadhiista waxa dhacay wax aqligaaga aan geli karin その武器は何て言うんですか war waxaan intee ku aragna teetan hadlaaya ah weligeena ma arag xataa Miguel xataa waa shoogsan yahay xanuun xataa ma dareemayo wuxuu taagan yahay luqadeeda fahmowsid miya su'aasheeda iga jawaab aaladda hadda isticmaalaysa ku duulaysa waa maxay Miguel wuxuu su'aashaas ka jawaabaa woo biyaaban yahay xataa anigu xataa ayaaban afka juuqa gaday markaasna teetanka Miguel ku dhigan intoo qabto sii qaniina teetanka waxshiin wuxuu leeyahay suk ma dhihino intoo qabto hamar teetanka isku majijiyo oo dilaa markaasna wuxuu leeyahay ha u qabanin ma mar qaar teetaniskayga saana u weeraraan Miguelna waa yaaban yahay kan boqorka teetaniska markaasna gacanta toola soo aado hal mar oo dhimi ka qaada woona ka sii
Teetega Miguel asoo istaagin wuxuu rabaa inuu la dagaalamo aad u qeylina markaas Teeteg wax xoolay hadda waa cuni kartiin kawaanku ni saaran yahay markaas Miguel wuxuu dhimanaa daawada qaabka u xumaa Teetaniska aadana u dhinayeen qeylada ka baxayana waa horornimo caadi ah daawada ma adkaysan kartaa والله qaabku argagax badnaa u dhintay markaas kuuri wuxuu aada tuuladiisa wuxuu arkaa aad inuu bursantaa magaalo walba asigana markaas wuxuu ku walwalaya hooyadiisa iyo dadkiisa oo dhan waalihiisa sidoo kale daawada waxaa jira wax kale oo la yaab ah hadii magaalada bursantaa waxaa rabaa Teetaniska dee soo weeraray inuu meel walba dhiig lahaado laakiin hal xaba dhiig male waska bursantaa le oo kaliya markaasna kooli soo u socdo wuxuu arkaa gurigiisa dhex yaala Teetan saas u dhex jiifo asigana aad u yaaba maxaa meeshan Teetan maxaa meesha ag keenay sidoo kale maxaa meesha ag jiifiyay waa wax la yaab ah markaas Rainer u maanay wuxuu leeyahay meeshan ka soo tag koolina wuxuu leeyahay hal mar wuxuu leeyahay Teetanka marka ana maxaa u maleysay inuu caayo oo kale kooxaha kale sida Krista iyo Ymir iyo Han seeraadinoo darbiga Teetaniska ay ka soo galeen sidaas ay tahay way la ilaa hadda habeenka markii gaarana kooxda saameynta waxay go'aan ku gaarayaan in dhaqaaq ay sameeyaan si Teetaniska meesha ay ka soo galeen ay darbiga rasmi ka imaaneen dhulka ka imaaneen la ogaado waxaana la socda Mikasa iyo Armin iyo Eren sidoo kale waxaa la socda Hanji iyo Badriga ahaa uu darbiga sirtiisa ilaaliyay loo yaqaan Nick sidoo kale waxaa la socda Levi sababtoo ula socdana ay tahay in la qirsiyo oo sheegay dhibaatada markii darbiga la burburiyo dadka sida noqonayaan asigana indhaha ma ko saar dadka walwalkoodii cabsida hees waliba sheegi lahayn sirta u haayo wuxuu leeyahay wax walba aan sheegay ma hay laakiin shay kaliya ogaha ay tahay in uu jiro qof kooxda saameynta ka tirsan qofkaas oo saameyn ku leh darbiga waana gabar lagu magacaabo Krista yaa oo sideen gabadhaas waa gabar iska cute laakiin waana sidoo kale waa maskiina wallahi su'aalaha isweydiinayna way nagu bateen Ivan intuu kala qaybiyo wuxuu ku leeyahay koox Hanji hadaba gasho oo meesha gabadhaas Krista ay joogto hal ugu tago kasna wuxuu ku leeyahay ma aqaan Eren wax kaga dhaxay laakiin waxa ka rabaa awoodaada oo dhan waa inay Eren ku difaacdaa mikasna taas way ogolaanayaan si walba way ogolaanayd ayada baratay markaasna Hanji dhamaantood way baxayaan si Krista meesha joogto ay ugu tagaan ayagana waxa loo baahan yahay inay meeshooda ku sugnaadaan ay adkastaan intay kooxda saameynta ugu maanayso laakiin waxyaabaha mar dhacay Teetaniska Miguel soo weeraray dhamaantood way soo weerareen qilcadana mar ku soo lexdeen sidoo kale Teeteg wax shid ah daanyarka ah gacmaha dheerka lahay asna waa imaaday wuxuu u socdaa qilcada dalbiga Roos waxaana dhan goomay dhaxaynay goormo meesha imaadeen waa wax la yaab ah asigana uu ignore gareeyay oo iska sii socdaa Bertud iyo Rainer indhey taagay oo markay arkeenba mid meesha joogo wuxuu leeyahay lahan Teetan ma qilcadeen u soo socdaan Teeteg wax shiga intuu dalbiga Roos karo meel dheer ka fiirsanooya kaanama inuu dhahayo ku socda iyo xirtiinka sameesta Teetansna waxay ku socdaan qilcadii yareed inay ku dumiyaan meesha ugu galaan laakiin waxay leeyihiin waa inay difaacnaa dhalinyaradan kooxda saameynta ku cusub ayagana waxay ku guuleysanayaan inta karaankooda ah inay baabi'iyaan dilaan laakiin albaabka gudaha furmayso taas oo macnaheedu ay tahay in Teetaniska yarka soo gali karaan cod xoogi meesha ka baqlan Rainer wuxuu leeyahay waa inay soo xirnaa inta Teetaniska gudaha lagu soo galin isla markaa Rainer markuu kaligiisa meesha tago albaabka soo furo waxa ka hor imaanay Teetan wajigiisa argagaxa moodid markaasna albaabka si xoog badan u xiray Rainer wuxuu leeyahay waxa ku celina noo keeno intuu hadalka dhameysan Teetan meesha xoog ku soo galay Rainer markaas wuxuu guuleysan inuu ka leexdo isla mar ahaantana Ymir iyo Conny iyo Krista waxay keenayaan aalad madfaca qadiimka oo Teetaniska darbiga loo adeegsado inay ku soo tuuraan si u socdo waxayna ku dumiyay albaabka Teetan ma ka soo kahara isla mar ahaantana Teetan kale to gadaal ka soo baxo oo yar mitirkiisa ay Conny soo ul rabo ayaa Rainer si xoog badan ugu badbaadeen laakiin Rainer gacantu qaniina si xoog badan ugu qaniino laakiin Rainer intuu qabto sida John Cena kale isku bedelo wuxuu rabaa daaqad inuu ka tuuro Conny wuxuu rabaa inuu gacantu ka qaniina inuu ka caawiyo ka fujiyo kadib Ymir imaan si xoog badan banaanka ugu tuuray wayna ku guuleysanayeen inay Teetan banaanka iskaga bixiyaan laakiin si dhaay maxay ahayd faarax qaabano si dhaxayo way kaaybe markaasna Krista wuxuu ku caawinaysaa Rainer dhaawiciisa inay qalajiso intii dharkii qayb ka mid ah u goysay waxay leedahay dharkan wasaqda leh ay garan noqo inta la ku awooda Rainer wuxuu leeyahay waa raali caadi hada fursad ku helatan waa guursanaa wallahi beertoodan wuxuu ku walwalayaa waa laba qof amoor jiro ilaahay dhalinyarada Teetaniska u dilayay way badaaliyeen oo dhiib giirka gaas ka dhamaarowba laakiin waxa dhaxay wax yaab ah dhagaxiina meel al garneen ka iimaanay wuxuu ka dilayaa fardii dhan dhamaatooda baabi'ay ayagana waxay isweydiinayeen intuu ka iimaanay intuu dhagax kale ay soo tuuraan wuxuu ku dhaca qalcad geeskeeda laba qof aan ku dhaawacmay khayas waxa soo tuuray hadda la gartay waa Teetan wax shiga ah daanyarka ahay xoog badna halaha soo masaafayso ugu soo tuuraya waa gacmihiisa dheer fursad u siinayso Conny wuxuu arka Teetaniska malaayiin kala imaadeen dhalinyarada kala banaanka jireen wax inta ka qawaayeen wuxuu dhintay si horornimo markaas Ymir saaxiibada Krista wuxuu leedahay waa inaa loolaataa Krista daarabta noloshan jaxiimada inaa ka baxsato Krista waabaya abantaa kaalama isdil rabtaan intii mid qaatay wuxuu ku leedahay Krista dukaata ku sunta noolo mana kayila inaa dhimatin waxay ka wadaa hal mar intee bood mid intee qaatay isku qalay Ymirna wuxuu isku bedelay Teetan yaa macquul ma hadhay sidee Ymir Teetan ku tahay waaba yaabnay horta ilaa meeqa qof bas bedeli kartaa Teetan noqon karo markaasna waxaa dhacay in Rainer iyo Bertold ay fahmaan Teetan kan waxayna dhahayn Teetan ka waa Teetan naftiisa saaxiibkiina waagas cunay Ymirna Teetan saas u weyn meehay waa Teetan sida raka oo kale laakiin aad u fududahay dhamaantood surka ka aadusay surka ka dilo sanadkii sidaas
ay taana dhamaantood baabi'i karto ay ka badan yihiin intii ka gaari weyso waxay dooran afartooda inay soo badbaadiso waxay leedahay tinteeda qabsada daartay inaan noolaatiin ayadana way hadlaysaa sida teetanka waxshiga oo kale markaasna dhamaantood waxay qabsanayaan tinteeda si u badbaadaan ayadana badbaadina dhulka u dejin laakiinse teetana soo weeraraya Yumirna wuxuu qasbataa teetanka saneediisa si uu maan meesha teetana ma ku sugnaa dhamaantood waxay weerarayaan Yumir waxayna unaa si waali ah nolosha inta ku cunaan Kristana intee argagaxdo in naxdo waxay leedahay saaxiibtada caaw intee urdeysna hamar waxa ka hor imaanay teetan gabadh intee isdhiibtay hamar waxa ka badbaadinaya qofkaasna wuxuu noqonayaa Mikasa final ugu dambeeyay waa imaadeen kooxda saamintii dhamaantood dabaaltood hal mar teetan isku yaacaya sidoo kale Eren Yumirna ayadoo aad u dhaawacan waa la badbaadiyay sidoo kale waa teetankii labaad oo gacanta lagu dhigo ilaa haddana Hanji iyo dhalinyarada kale waxay ka yaabihiin sida Ymir teetan u noqotay markaasna Hanisa imaanaya asoo xogta teetaniska derbiga roos lagu arko wado maxay ka imaadeen iyo halkay ka soo galeen wuxuu leeyahay horta war cajiib aan haya ee dhigasta horta derbiga roos hal qadish oo meel tar xataa ma laha hal meelna teetanka ma burburin raadkiisa laguma arkin yaa sidee saas ku dhacdana waayay dhulka may ka soo baxeen intee ka imaadeen waayay su'aal isweydiiya loo baahan yahay ayagana dhamaantood waa yaabeen markaasna Eren Reiner inta uu wuxuu ku leeyahay dana kaaleenaya Eren hamal noo imaan karta asigana wuxuu leeyahay dhimana waa caadi maxaa wax jiro wuxuu leeyahay wartas weyn ma aan kaliya waxa rabaa inaan ku sheegna ahaan teetanka gaashaanka ninkan uu yahay teetanka weynka ya oo dhahay ya ma uu maqalnay ugu soo celi war caadi ah bala ku aragto war caadi ku yiri teetanka gaashaanka ahaa beertoldan ma teetanka weynka waxaba kaaga sii dara normalkii sida degnaanta ugu dhahooyo waaba wax cajiib ah wuxuu ku leeyahay Eren kaliya ma soo raaci kartaa 5 sano ka hor waxa darbiga u burburin kaliya ilaa in hadaf aan ku laaban karno laakiin sadaadina soo raacda darbiga kale ina burburin dan iyo heela kama yeelan kaliya ma soo raaci kartaa Eren adiga ya kadibna intee u wadeen inteena sheegaysaa waa yaabe wallahi maat waa wareeranuka tiyaab amaata indheena aasarnay laakiin sidee u muuqato waxaan Hanji Eren kuma cusba kaliya anuka nagu cusub yihiin oo daawadayaal ah waxayba u muuqataaba kaanama ayaga inay ogaayeen xataa ayaga waxayna damaxsanaayeen aan dib ugu laaban intee kooxda saaxiibinta caawin ee u maanin xogta Hanji ka qabatay Reiner iyo Bertolt Hanji waxay leedahay xogtooda ma kilbaaray qalcada meesha ku noolaayeen in aanay markaas ay ku sugnaan maas ay saddexdooda isla joogi jireen sidoo kale saddexdooda waalidiintooda meesha ku sugay lama haayo waxayna sheegay saddexdooda waalidiintooda inay dhinteen Armina markaas hadlay wuxuu leeyahay aanay idil rabto laakiin waxay u badbaadiyay Reiner sidoo kale waxay la socday Jan saddexdeena ay waana dabgali Hanjina waxay leedahay markay inay dabgalaysiin teetanka naagta ku ogaata Eren meesha ku sugan yahay Reiner Eren wax ma ka weydiinayay ma iiseenayay markaasna Armiska isna ka shaqeysay wuxuu soo xasuusnaa markuu Reiner ahay Eren halkuu ku sugan yahay wuxuu leeyahay ku su'aasha sa i weydiiyay sidoo kale aanay gacanteeda ku qabata si fudud ugu soo baxsaday markaas kadib aanay gacanteeda cabaar ku mashquulsanayd fiirinaysay waxayna u ekeed inuu message u reebay aniga waa boqolkiiba inuu message u reebay dhammaan wixii goobta ku sugnaa hal mar inaxa Eren wuxuu leeyahay war Armin maxaa waxa ku haldaysid Armin wuxuu leeyahay maha goobta waa ku sugnaa laakiin way awoodii inay dishay sidaas ay taan toog ugu soo baxsaday ayana cabaar gacanta fiirinaysay arna ilaa ay si dhaqaaqaysa isheega ku hayay waa huba inuu message u reebay message-kaas ay ku ogaatay inuu Eren meesha joogo Hanji waxay leedahay warka ku dhan Bertolt iyo Reiner waa ina gacanta lagu dhigaa sidoo kale inaga dareemina qashaki yar inuu galmal rabo ee ismaahiya oo kaliya Eren Reiner wuxuu ku leeyahay in daaranta laga yaabo maskaxdaas ku yaacday markaasna Mikasa uu sicil ilaada waxay rabtaa seefta inuu soo baxdo Reiner wajigiisa saxda inta soo baxo wuxuu leeyahay meeqasna dadkan baqtiyaashan ku dhex jiro aadanaha la difaaca ay waxa loo jeeday caadiya ii saameeyeen aniga wuxuu leeyahay Bertolt warka ku dhan anka halaan oo dhamma dul qaadan karna anka askarna min kooxda saaminta madihin waxaana dagaalyahano oo wadankooda u dagaalamayo gacantii ka dhaawaclayna hamar u reesanay oo ku cadeynaysa inuu ahaa teetan wuxuu leeyahay Bertolt anka mishiinkeena ma hana ku soo afjareena asigoo saasi dhaay hamar labadooda Mikasa inta u maatay labadooda qoot mid uu jajaray ayadana Eren fursad u abuurtay xilada Eren meesha ka carar Eren muxuu cararaa asaaba shoogsanay hal mar labadooda meesha maasa inta ka kacday isbedelayaan oo arinta kaftana umaleeyeen waa dhab wallahi waa isbedeleen teetanka gaashaanka teetanka way noqdeen Bertolt wuxuu gacanta ku dhigay Ymir oo raba teetankeeda halka Reiner oo la baxsanaya Eren oo raba teetankiisa Eren waxa soo dhan kuma tagna wuxuu soo xasuusanaya afsaxabtiisa qaaliga oo Johnson inta soo muddo isla qaadanayeen oo qiyaameen markaas Eren murugtiisa dib ugu celiyo gacantiisa qaniino hamar isbedel wuxuu leeyahay qiyaamiyo waqtiga xalqada soo socda waxaa arki doonaa teetanka weyn oo dagaalamaya kooxda saaminta oo Hanji hogaaminayso sidoo kale dagaalkii u dhaxeeyay Reiner iyo Eren oo ah Teetan face Teetan waa dagaal aad u kulul oo laba teetan oo xoog badan dagaalayaan xalqada soo socda waa xalqada 9aad waana xalqada season 2 ugu dambeysay waana xalqad aad u xamaasad badan